shucuurta dareenkayaga ayuu beddelay. safar cirka ayuu ahaa la kulankayagu. maaha shiikh caalima, siyaasi, fannaan iyo ciyaaryahan raadintiisa loo golongolay toonna, laakiin waa dirane kale. in ka badan 9 waddan inuu ku soo safray ayuu ii sheegay. hase yeeshee socdaalkiisu maaha mid dalxiis oo iska caadiya. kolkan waraystay waxauu iiga sheekeeyey waayihii berisamaad iyo Soomaali, wuxuuna dareensan yahay qiimaha wadaniyadda, daljacaylka iyo lixjeclada qaran Soomaaliyeed. kama warramayo taariikhyahan soo akhriyay buugaag badan ee tani waa sheekada Abuukar Cali Nuur, aabe Soomaaliyeed oo calanka Soomaaliya ula safray dalal badan oo ka mida kuwa adduunka. Abuukar waa abwaan wadani ah. diyaarad guudkeeda ayaan kula kulmay Abuukar oo safar waa dalka Holland, halkaas oo uu degan yahay. Abuukar waxaanu aragnay markii diyaaraddu caga dhigatay Istanbul. daqiiqado kooban oo hakad ku ahaa garoonka Istanbul, waxaan fursad u helay inaan sheekaysano. 15 gu ayaa ugu dambeysay dalkii hooyo, laakiin Abuukar muddadaasi waxa uu heshanayay calanka bilcan ee cirka u eg xidigta 5 gees ahina dhexda kaga cabiran tahay. wuxuu iga warramay sida uu uga warwarsan yahay calamada badan ee maamulada Soomaaliya iyo sida loo wiiqay qiimihii calankeenna. isagoo ka jawaabaya dareenkaasna, Abuukar waa sababta u xambaarisay calanka buluuga. Axmed Darwiish oo safarkani wehelinayay waxa uu naga duubay wada sheekaysigan. marka hore idinkoo dhalinyaro ah haddii ay idin taabatay arrinka kan ah oo shucuurtiinna ay runtii ay kor u kacday, wax lagu farxay tahay kolley. aniga calankaanan aqaanaa, waa kii aan wax ku soo bartay lacag la'aan oo anoo maaragtay qarshi bixin ilaa dugsi sare jaamacad bokid man la isinay anoo wax baranayo. marka calankii waxaan arkay oo la dayacay oo kuwa yaryar intii la samaystay oo aad ka dhadhansanayso maaragtay qabiil inuu yahay. calan kastaba cid waliba waxay samaystaa calan, markaas waxay tiri waxaan ahay magaciisi dowlad goboleedaan ahay. marka kii rasmiga ahay ee mideeyaha ahay oo Soomaali mideeyay ayaa wax la tuuray, markaas waxaa la soo qaatay kuwa oo qabiilad ka arkayso. marka taasaa i kacisay cid waliba waxay samaysatay calaamadu awoogood u talay. marka waxaan go'aansaday in maaragtay aan tuso dadka in maaragtay Soomaali mideeyay waa kan wax kaloo meesha lagu wado inay wax ka jirin. halkeed ka timi, halkeed ka soo safartay? aniga waxaan ka imid Holland, sidaasaan calankayga u sitaa mar waliba. waqti intee leeg baa kuugu dambeysay Soomaaliya? niyo waxaa igu dambeysay adeer 15 sano. 15 sano. Imisa wadan baad la soo martay calanka? maxay ana saa wato waxaan tagay Canada tagay. ingiriiska iyo maasmayda iskabada waa halkaan waxaan ku rahdaa ingiriiska iyo Switzerland aan iraahdo Sweden meelo badan la soo maray. sidaan oo kale ila yaabaan maartay oo yiraahdaan dareenka dadka ajnabiga ah ee Soomaalida ah markay arkaan inaad calankiisa sidato, way dadka Soomaaliyeed dad dal jacayl iyo in calankooda jeclaadaan looga bartay ma oo inta badan dunida waxa la arkaa meel walba inagoo la taagan calan aan kana ahayn oo calan sida aad ka dhawaajisay, calan magaalo ama calan gobol ama calan maamula. dareen ahaan maxaa lagu weydiiyaa, maxaa lagu yiraahdaa? wallahi way qiimeeyaan runtii dadka markii ay iraahdo waa Soomaali oo xidigtana aan u sharxo shanta Soomaali inay misalayso aan iraahdo dadka waa si kala qaataan. qaarkood oo aan ogeynaa jiro oo maartay magaciisa la qaarkood dareen saasa waa qabaan ama waa akhriyay ee guliga qaarkood waa akhriyay Soomaali maartay wadan weyn oo magaciisa u ahaayo maxaad gumeysi inuu kala qaybiyay baadin 1884 la kala qaybiyay inta qaarkood saasay ku sheegayaan. qaarkoodna ma yaqaanaan inta iskaga yaala Afrika, geeska Afrika ka yaala taasoo ama waxaan u soo bixiyaa magaciisi oo u sharxaa waa kanaan leh
وبطان دير ما قتين الله إذنك والله ودن في عنا يراهدان دتك آدم جعلستان أوكر على النور اللي يراهدا بس أذرك قرني اللي يقنا adeerka qarniga قرني أنا أذرك نجد أنا adigu adeerka calanka أنا أذرك يوم إنسانا adeerka calanka واقع adeerka calanka aad iyo aad mahadsantahay أذرك مدني sida caadiga ah mar kasta ayaynu aragnaa dalxiisayaal dalal kale iyo dad u safraya qaaradaha adduunka oo calamadooda sita laakiin Soomaalida kala qaybsanaanta ayaa badayn cid walba si gaar ah ka maamulkooda magaaladooda u qaadato markay iskood u soconayaan hadiiba ay dhacdo Abuukar taas waa uu iska diiday waxaana uu isagu sitaa calanka Soomaaliya oo amuunada iyo astaanta nool ee Soomaalida adeerka qarniga waa naanaystiisa laakiin adeerka calanka ayaan ugu yeedhay anigu adigu Abuukar maxaad ku tilmaami lahayd hoos noogu reeb fariintaada macmil haddii aad tahay arday daneynaya inuu wax ku soo barto dalka Turkiga waliba qiimo macquul ah ku soo dhawow shirkadda Askunicom oo soo saarta waxbarashada dibadda iyo fiisaha dalka Turkiga soo booqa xafiisyada shirkadda Muqdisho Hargeysa Garowe Gaalkacyo Beledweyne iyo Istanbul kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda ama booqo website-ka www.askuni.com